السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Aayatullaahiga dalka Iiraan oo wacad ku maray inaan marnaba laga hari doonin oo la dili doono kuwii dilay aabihiis. isla markiiba Trump oo wareeray sheegayna haddii lacala Iiraan ay disho amarka uu bixiyay wixii lagu sameyn lahaa Iiraan. waa badhintay maxaa amarku bixinay sheekada yaab leh oo arrimaha ku saabsan barnaamijkan idinku waaya. qaraxyo laga maqlay goor dhaweyd qaybo ka mid ah magaalada Tahraan talow mar kale miyaa la soo weeraray mise waa hawl kale. wafdi ka socda Iiraan oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaqji oo iyaguna gaaray waddanka Cumaan. haddaba wararkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa intaan ku jirnana wixii akhbaarada ee soo dhaca waan idinla socodsiindo. haddaba barnaamijkeena gabi ahaantii waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda bariga dhexe, dagaalka iyo dhibaatada iyo xiisadda ka dhex jirta Maraykanka iyo Iiraan. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa aayatullaahiga waddanka Iiraan ninka la yidhaahdo Mujtaba Khamenei ayaa wacad ku maray in kuwii dilay aabihiis aayatullaahigii hore iyagana la dili doono, aayatullaahiga loo argudi doono. ninkii Trump iyo Netanyahu ahaa cabsi meelay istaagaan ma laha hadli. awal waxaa hadli jiray dad yaryara hadli jiray, nin oo maaragtay wadaadada Iiraan ka tirsan, nin wasiira, nin taliya ah, waxaasaa hadli jiray. maanta waxaa soo hadlay aayatullaahiga Iiraan. waa aabihiis waa nin kala dilay, siduu ku cafinayaa oo weliba gardarro lagu dilay. marka waxaa la leeyahay saasay u jaraynayaan saacaddaas wixii ka dambeeyey ninkii Trump iyo Netanyahu ah. haddaba marka muxuu yidhi Mujtaba Khamenei warkiisa muxuu yidhi? haddaba arrintuso telefishinka Al-Jazeera ayaa qoray warka ka soo baxay aayatullaahiga Iiraan. wuxuu yidhi waanu aargudi doonaa kuwii dilay aayatullaahigii dhintay. haddaba aayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa wuxuu sheegay in kuwii ka dambeeyey dilka aabihiis iyo aayatullaahigii hore in markaa iyo weliba dadkii kale ee shuhadada ahaa ee la dilay in markaa loo aargudi doono. haddaba aargudidan iyo aarsigan dhiigga hogaamiyaheenii dhintay waxaa waayuu yidhi iyo kuwii kale shuhadada ahaaba dalab ka yimid shacabkeenna, waxaana waajib ah inaynu fulinaa. warkaas waa isku dhammaaday. dalab ka yimid shacabka waxaana waajib ah inaynu fulino. kuwii dilkaas geystay lama dayn doonuu le, waa aargudanaynaa. meelaan ku qabannaba waa ka takhallusaynaa u le. markii yaa dilkaa loo haystaa, laba qofaa loo haystaa. Trump u weyn, Netanyahu ku xiga. Netanyahu isagu wuxuu ku cabsiinaa adaa lagu socdaa Trump marka warkaas uu maqlay odagii waa jiray beel laga jiro oo waay. sheekada la yaab kale waxa waay saakayna waa ka hadlayna odaga inuu kala hadlayo u wareeray. wuxuu yidhi haddii kulaha ay idilaan Iiraaniyiinta u fiirsada ninka waa isdhiibay. haddii idilaan Iiraaniyiinta kulaha waxaan bixiyey amarka ku saabsan 1,000 gantaal horta markaas in lagu salaamo, kadibna dhulka la dhigo, kadib saa la yeelo. odaga warku waa tartaray. maxaa kuu geeyey marka hore aayatullaahi dilkiisii ninkii Netanyahu inta qalqaaliyey oo ninkaa dagaalgeliyey. ninkii hadda ma hoyan karo, wuxuu taagan yahay haddaan dhinto amarkii waa sii bixiyey, waaba dhimatay, yaaba ku dhagaysanaaday amarkaaga buxuy. sheeka waalla meeshaa ka socda. adduunkii ninkii Trump ah Iiraana waash awal baasoo meel yar iska haystay inta yareeda sii kala fureen. haddaba markaan idintuso wararkii ugu dambeeyey ee Trump isaguna uu ka yidhi sheekadan. haddaba waxaa la sheegayaa 1,000 gantaal ayaa diyaar ah uu yidhi Trump wuxuu sheegay hanjabaadaha Iiraan waxay noqon doonaan kuwo cagta la mariyo Tahraan haddii uu yidhi aanay isdhiibin. dhanka kalena wuxuu sheegay haddii ay isku dayaan inay aniga idilaan inay dhibaato la kulmi doonaan. haddaba madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa uga digay Iiraan in Maraykanka si degdega u weerari doono oo uu ku garaaci doono 10 gantaal haddii ay isku daydo inay disho isaga.
Trump ayaas waxa uu ku qoray bartiisa bulshada ee yiraahdo True Social haddii dawladda Iran ay furiso hanjabaadaha ay marar badan ku celcelinayso kaasoo ah in isaga ay ka takhalusayso in markaa isaga ay kharijiso ayaa waxa uu sheegay Mareykanku inuu diyaarsaday go'aankina uu gaaray inuu kaga jawaabi doono 1,000 gantaal oo lagu garaaci doono Iran. Madaxweyne Trump wuxuu intaa ku daray in amarada arintaasi uu horay u bixiyay isla barkaana ciidamada Mareykanka ay diyaar u yihiin go'aan degdeg ah inay markaa arintaa ka qaataan haddii isaga la kharijiyo la dilo. hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ay sheegeen in markaa Mareykanka uu digniino culus ka helay sirdoonka Israa'iil oo loo sheegay in Iran ay ku raad joogto Trump oo ay doonayso inay kharijiso sida ugu dhaqsaha badan. si kastaba ha ahaatee warbixintu ma cadaynayso goorta iyo xilliga iyo qaabka waxay u dhici karaan. haddaba warbixino kale oo warbaahinta ay qoreen ayaa waxaa la sheegay in markaa cabsi ay soo food saartay madaxda Mareykanka gaar ahaan Trump. odaga saasoo jiray amarkii aan bixiyay kula haddii la idilo 1,000 gantaal lagu garaacayaa Iran dukum daakuma laga dhigayaa waliba waa loo sii raacin doonaa intaas iga joogo ma ka jooga Ayatollah iyaga aabihiisa la dilay ma hela ku haraan male shiicadaan hal mar hadaa wax ka samayso maanta oo dhan way ka dabalaalacshooba waa kugu dhagaraanayeen maanta ilaa ay ka argutaan marka ninkaan markaa dhiiqa lugaha loo galshay ma jirto odagii Trump dhiiqo lugaha la galay bootadii waa dhamaatay ani ma idili karaan ima soo dhawaan karaan ma dhihi karaan wuxuu taagan yahay haday idilaan 1,000 gantaal amray lagu dhufto waaba lagu dilay amarka adii laga sugaa muxuu dad kala ba hawshii la wareegay meesha maxay yaal meesha amarka laga sugaa muxuu marka arintan khalkhal weyn abuurta nimanka Iiraaniyiinta inay wax walba samayn karaan meesha ka cadaad. Trump hal mar afkiisa soo ma qaadan ma idili karaan aniga ima iman karaan ima soo dhawaan karaan xataa ma dhig wuxuu taagan yahay nimankan waaba idili karaan haday idilaan amarkaas aan bixiyay marka nimanka inay awood leeyihiin oo wax walba fulin karaan meesha ka cadaadley marka xaalku marka halkaas uu maraya sheekadu halkaas ay tagtay Ayatullahigi waa hanjabay aabihiisa la dilay Trump saas oo jareynaya hadaan dhinto marka uu halkaas baray wararka kale cusub waxa ka mid ah qaraxyo ayay warbaahintu soo tabiyeen in saacada ka hor laga maqlay magaalada Tehran. haddaba iyadoo dadku ku wareersan yihiin warbaahintu ku wareersan tahay ayaa hadda goor dhaweyd waxa faahfaahisay dawladda Iran waxa ay qaraxyadu ahaayeen. haddaba marka aan idintuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray qaraxyo ayaa laga maqlay dhanka bariga gobolka Tehran. haddaba wakaaladda wararka ee Iran ayaa goor dhow baahisay Faris in la maqlay qaraxyo laga maqlay dhanka bariga magaalada Tehran iyadoo aan markaa la ogeyn waxa iyo sababta ay qaraxyadu ahaayeen. laakiin markii dambe waxa xaqiijiyay qaraxyadu waxay ahaayeen xaakimka ama ninka gudoomiyaha ka ah gobolkaasi oo Tehran la yiraahdo in qaraxyada la maqlay ay ahaayeen burburinta walxo qarxayay oo yaalay halka oo ciidamadu ay burburiyeen. marka wuxuu leeyahay xaalku marka halkaas uu maraya qaraxyadaas waxay ahaayeen kuwo macnaha alaabooyin wixii Mareykanka u riday oo aan qarxin ayaa la qarxinayay oo la nadiifinayay bariga gobolka Tehran. qaraxyadu marka sidaas ay ahaayeen ayaa la leeyahay. dhanka diblomaasiyadda wafdi ayay Iran waxay u dirtay dalka Oman waxa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi. Iran wali waxay leedahay anaga diyaaranahay dawladihii dariska kuwii gobolka kulli nabad Soomaaliya nabad diyaaranahay waa ka yimaado Mareykanka wixii hore aan ugu heshiina laakiin hal meel mariyo mid cusub ma la bilaabo may
إيران ويديدنتها فايل عصب لما فراي لين فايل أن كوهشيني اسفهم عن عي وحبدنا كوهشيني إلا عكتنا نلاوب شبه قعدتنا لو قليو وحنا أن ما ملنا هرمس وحشا كوهشين marka hadda fayl cusub hadii la bilaabo kuma jirreelay marka Mareykankana sheekadii hore la xumaatay hadda wuxuu rabaa qodobadii qaar in maartay tii hurmus oo kale iyo wixii oo kale iyo in wax isbedel lagu sameeyo taa marka ma u shaqay doontaa ma yahay sheegin Iran waxa sameeyay hadda marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay Aljazeera waxa leedahay Abbas Araqchi wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa waxa la sheegay inuu ku sugan yahay magaalada Masqad ee caasimadda dalka Oman si uu markaasi arimo ku saabsan marinbiyoodka Hormuz iyo ugala hadlo madaxda halkaas Oman hadaba waxa la sheegay in halka ay wada hadallo kula yeelan doonaan madaxda waddanka Oman way marka Mareykanka uu imaanahay maado anaga laakiin diyaarana wada hadal nimanka Omaniyiintan xogaayir wala la kulmaya Mareykan iyo qolooyin kala waxay leeyihiin Oman dhankeeda maraakiibta soo mareen marka Caraaqti loo diray Caraaqti inuu la soo hadlo raadayis sheekadaas ku soo faragashan annaga Mareykan isayna dhulkeena soo maray ka soo maray maxay idinka galaaday dadkan aan jugta ka saarno maalin walba ma aragtaan Mareykan waxa uu ka celin karaa Kuwait Bahrain Qatar su'aal walba jugta ka gelina aw Mareykankii joog marka meeshan ha isku degdegina ha isku soo dhaxgalina leeyahay xogaay lugta dhulka loogu dhufanayaa Omaniyiin waa la handadaya Mareykan waxa leeyahay wada hadal rabto kaale isku arkeen marka sheekadu marka halkaas ay baraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa saacadihii la soo dhaafay wixii warar soo kordhay waan hubaa inaad ka hesheen warbixinadii iyo wararkii aan ku soo gudbinay barnaamijkaygii saakay aan soo gudbinay inta aan daawanayo way daawan doonaan like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka meel kastoo aad joogtaan asxaabay waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo